Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomiyay danjirayaasha cusub ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka oo bedelaya danjirayaashii hore ee dalalkaasi ugu joogay Soomaaliya. Danjiraha dalka Faransiiska Marwo Alain Casta ayaa madaxweynaha u gudbisay fariin ay ugu siday madaxweynaha dalkeeda Emmanuel Macron, taasoo ku saabsanayd bogaadinta guulaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tallaabsatay iyo dhiirigelinta qorshayaasha horumarineed ee la higsanayo. Danjire Alain ayaa tilmaantay in dalkeedu uu kaalin ka qaadanayo dhamaystirka dadaallada cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya iyo tayeynta ciidanka qalabka sida. Sidoo kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomiyay danjire Aneth si ay dalkeeda Jarmalka ugu matasho Soomaaliya, isagoona kula dardaarmay inay sii xoojiso xiriirka saaxiibtinimo ee labada waddan ka dhexeeya. Aneth ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka taageeri doonaan kobcinta xirfadaha iyo barashada farsamada gacanta, taasoo lagu xoojinayo fursadaha shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin waqti xaadirkan. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saareyso dhismaha ciidanka qalabka sida, kobcinta dhaqaalaha, dhamaystirka hannaanka dimuqraadiyadda, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, iyo kor u qaadista fursadaha shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin waqtigan. Dhammaan qorshayaashaana ay gacan ka geystaan Midowga Yurub oo ay hormuud ka yihiin wadamada Jarmalka iyo Faransiiska. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa haatan dadaal ugu jirta sidii caalamka intiisa kale ay ugu dhaadhicin lahayd in Soomaaliya ay soo kabanayso, sidoo kalena ay u baahan tahay maalgelin shisheeye.